horta laba shay aan aad iyo aad iyo aad iyo aad anigu aan dhahayo inaba caadi ma aha oo aan dhammaysan rababa. warahmatullahi wabarakatuh kusoo dhawo channelkayga magacayga waa Sahra hadaad igu cusub tahay barasho wanaagsan hadaad soo noqonaysid oo aad tahay qof igu xirana soo noqosho wanaagsan oo wacan thank you waan kaaga mahadcelinayaa sida qurux badan aad igu xiran tahay ana ila socotid gabdho badan baan u mahadcelinayaa oo magacooda hadda inta ka sheegi karin laakiin se isoo weydiiyey oo ay dhahay Sahro maxaa ku dhacay ama mataqaanaa away alaabtii aad noo soo jiyaabinaysay maxaa kugu dhacay lahaatul khayru fi kulli makaan baa noqotay you guys that's just af Arabi aan aniga iska aliftay marka hala yaabina ha igu qaslina anyways maanta ujeedada videoganayt waxaa waaye in aan niga soo waramo sidaan niga ballan qaaday alaabtaanayto aan soo gatay videoganayto haddaan soo daawanin fadlan videoga soo daawo inaan soo noqo maxaa yeelay waxaan ka hadlayaa alaabtaanayto aad ujeedaan dee mataqaanaa waxaan hadda ka faa'iiday iyo dee waxaan ku arkay wallahi waad u baahan tihiin inaad videoganayto kulligiis aad dhamaystirtiin maxaa yeelay war faahfaahin fiican baan niga siinayaa alaabtan oo dhan marka insha allah haddii aad jeceshahay in aad sii daawatid fadlan mataqaanaa waxay isug intaan la hadlaa kooxdaanayto oo weli subscribe karin hadaad igu cusub tihiin fadlan subscribe gare yeah I would really love it and appreciate it marka insha allah haddana waxaan guda galaynaa videogan wuxuu ku saabsan yahay saan nigu soo sheegay maxaa video horaan soo dhigay oo aan dhahayo basically dad badan baan arkay alaabtaan isticmaalaysa maxaa the ordinary aad iyo aad looga mataqaanaa ama loo faaniyey ama dee si fiican looga warramay oo la dhahay waxtarkooda aad bay u fiican tahay marka waxaan is dhahay let me try it and see maxaa la dhahaa bal hadday aniga wax ii tarayso maasha allah waxaan soo gatay 6 shay mataqaanaa companyganayto ay gadaan waxyaalo badan oo badan bay gadaan wallahi 6 shay waxaa waaye wax aan dad kale ka arkay oo soo gatay oo very popular ah oo si badankood mataqaanaa loo gato marka insha allah hadda waxaan nii kala sheegayaa saan u isticmaalayay horta sidaan videoga hore ugu soo sheegaba shirkadaanayto laba wax bay aad iyo aad mataqaanaa aan uga helay waxaa weeyaan kow wax walba oo productska ku jira ama aad mataqaanaa basically alaabta waxaa ku jira the actual product waa lagu sheegayaa oo wax qarsoon ma aha wax aad mataqaanaa ka shakiyaysid ma aha because obviously waxaas oo dhan waa lagu sheegayaa adiga unbaa loo baahan yahay inaad mataqaanaa wax yar cilmi baaris subisteed jirkaaga waxa u fiican haddaa dry skin tahay haddaa oil skin tahay haddaa combination of both aad tahay wixii u fiican inaad soo gatid aniga badanaa I love skincare and I don't know if you guys see but this is my favorite skincare line waa Tatcha inshallah video haddaad jeceshiin video kalaan niga soo duubi doonaa but I love Tatcha and maalimahan hadda waxaan ku aad iyo aad u jeclahay xitaa Ole Henriksen oo iyagana skincare maxaa la dhahaa company ah marka the ordinary maadaamay wax walba ku sheegayaan taasaan ku jeclahay talabaadaan ku jeclahay waxaa waaye waa raqiis hadda Tatcha iyo Ole Henriksen iyo waa qaali waa very very expensive but kuwaanayto like $10 baa ugu badan waxaan soo gatay aniga marka $10 oo aad wejigaaga usoo gadid $5 kuwa ah $6 kuwa ah but wax like $30 mata 40 gaaraya oo aad wejigaaga usoo gadid oo aad mataqaanaa adiga skincare mise mataqaanaa maxaa la daryeelaysid waa faa'iido so insha allah labadaas wax aad iyo aad bay ugu fiican yihiin kulli waxaan ka hadlaayana intaan soo dhigayaa magacyadooda oo dhan iyo meeshaad ka helaysiin oo dhanna
hoos baan soo dhigayaa marka just descriptionka fiirsada haddii aad mataqaanaa rabtid inaan ku gaar ku siiyo snapchatkayga waa kan marka snapchat ila soo xiriir waa just magacayga waxaa waaye isku filan so isku filan oo waxna aad ku daran oo no spaces oon igu aad garay insha allah and then haddii aad su-aalo mise wax kale aad rabtiin I'm ready inaan niga jawaabo oo haddii aad rabtiin mataqaana inaan nii soo diro meesha laga helo gabdha isoo weydiiya oo u malaynaya inaan alaabtan aniga gadaayo ma gadaayo waa online waxaan oo dhan waad heli kartaa sida la igu sheegana gabdho oo Soomaaliya jooga waxay dhaheen waan helnay ama waxaan looga keenay wadanka banaankiisa mise ehel iyo xubaan oo keenay marka adiga magaca iyo waxaas qoro haddii aad wadankii joogtid maybe qof ehelka ah mise qof saaxiib ah ayaa ku keeni kara insha allah ka ugu horeeya waxaa waaye vitamin C suspension 23% plus HA spheres 2%. aniga horta kan si aad uma marsanin maxaa yeelay waxaa waaye basically waa moisturizer cream camal oo habeenkii iyo maalintii aad isticmaalaysid inkastoo aan mataqaanaa isticmaalay wax badan oo wax faa'iido leh mise wax like isbedel weyn ma isku arkin because waxaan isticmaalaa moisturizer kale oo aan aad iyo aad u jeclahay oo aan mataqaanaa ku saqajaamin marka si weli way buuxdaa actually si fiicanna mataqaanaa uma isticmaalin even though uu vitamin C yahay annaga haddaan Soomaali nahay vitamin C aad iyo aad bay noogu fiican tahay marka tan waxtarkiisa wallahi wax badan ma ku arkin okay waxaan u gudbaynaa daladaanayto waxaa weeyaan magaciisa waxaa waaye ascorbyl glucoside solution 12%. iga saxa magaca I think it's ascorbyl glucoside solution 12%. waa brightening serum marka saliidaanayto waa serum la marsado wejiga and wallahi horta waxaan aad iyo aad iyo aad uga helay serumkan waxaa waaye horta marka ugu horeysa aad bay u fududahay oo very lightweight weeyaan haddaan hadda nituso on my skin waa ujeedaa like it's very 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 light waa saliid oo mataqaanaa durbadiiba mataqaanaa taariixaysa waana aad bay khafiif u tahay waxyaalo qaarkood oo moisturizerka ama silida ah way culus yihiin waa very heavy marka waa dareemi kartaa laakiinse tan waxaan aad uga helay waxaa waaye way fududahay waxaana loogu talagalay habeenkii iyo maalintii marka habeen walba iyo maalin walba subaxdii markaan soo kaco intaan kuwa kale hormarsado ayaan korka u marsan jiray waxaana kaloo ku arkay oo aan ku jeclahay it's basically like a seal like waxaad u malaysaa markaad marsatid alaabta kale oo aad tan kor marisid inay like iyada dhan xirayso oo meeshii dhan kind of sets it or it doesn't move like products together iyo waxaasoo dhan faa'iidadooda waa helaysaa marka saliidaanito aad bay u fiican tahay and waan ka helay run ahaantii horta laba shay aan aad iyo aad iyo aad iyo aad aan dhahayo inaba caadi ma aha oo aan dhamaysan rababa oo aan aad uga helay waxaa weeyaan kan oo ah niacinamide 10% plus zinc 1%. So niacinamide 10% plus zinc 1%. iyo hyaluronic acid 2% plus B5. inaba caadi ma aha you guys bahalladanayto waxaa loogu talagalay basically kan waxaa waaye a formula oo mataqaanaa hydration ah kanna waxaa waaye high strength vitamin and mineral blemish marka mineral badan baa ku jira I think I don't know minerals badan baa ku jira niacinamide-na waa very nice maxaa la dhahaa brightening baa u malaynaya aniga sahro ahaan high pigmentation ayaa waxaan ku leeyahay garka iyo mataqaanaa indhaha hoostooda marka garkii iyo mataqaanaa dabnaha korkooda meelahan hoosoo dhan waxyar waaye waxaad u moodaa inaan mataqaanaa jirkeyga kale like madaxa iyo dabnaha iyo meelahan camanka dhan inuu wax yar ka madow yahay waa high pigmentation afka Soomaali I think waxaa lagu dhahaa like caarana ma ahe haar I think right marka
wixii oo dhan waxaad u malaysaa hyperpigmentationkii oo dhan inuu iga baaba'ayo habeen iyo maalinba bishaas iyo barkaas aan iga maqnaan waan isticmaalayay teeda kale waxaa nagu filan un very small drop this hyaluronic acidka iyada waa iyadana wagta waa clear solution oo aad maxaa la dhahaa saliid oo very soft very maxaa la dhahaa lightweight iyadana ah niacinamide-kana waxa waaye wax yar wiiro culus yaha waa dareemaysaa waa kareen yaro culus waa saliid yaro culus aan ka wadaa oo markaad marsatid waa dareemaysaa bal labadoodaba waxaa weeyaan waan isla marsanayay habeen iyo maalinba waan marsanayay weliba markaan sii seexanayo waan marsanayay subaxdiina markaan soo kaco waan marsanayay and then waxaan korka ka marsanayay saliidii oo ahayd mataqaanaa ascorbal glucosidekii oo maxaa la dhahaa loogu talagalay in aad mataqaanaa saliid ahaan u marsatid you guys labadaanayto iga qora meel ku qorta haddii aad wax soo gadanaysiin labadanayto haddii aad tahay qof mataqaanaa jirka maxaa la dhahaa isku dabnaha iyo garka iyo meelaha hoostooda iyo wejigaaga kale aad mataqaanaa kala kalar tahay waxaan ku dhihi lahaa soo gado oo isku tijaabi aad iyo aad bay aniga i anfaceen oo aad iyo aad baan uga helay marka labadaas waa kuwaas and then ta kale oo aan aad iyo aad u dhahayo wax weyn baan iskaga arkay waxaa waaye caffeine solution 5% plus EGCG marka sidan uu egyahay baaralkii ma aqaan inaa u jeediinba wallahi waama dhamaysan rabaa hadda saliidii intaas basaa ku hartay mid kalaama order garaysto iisoo socda aniga maxaa la dhahaa dadka waxaan ahay inta indhaha hoose ka madmadow oo mataqaanaa jirkooda wejigooda kale u ekayn intaan isticmaalayay maba sheegi kari like waxaad u malaynaysaa indhihii hoostooda inay jirkaygii kale oo wejiga inuu u soo ekaanayo inuu haarkii iyo madowgii iyo mataqaanaa bararkii hoosta markastaan soo kici jiray barar badan ba inta hodba igu jireen barar baan dareemi jiray marka waxaad u malaynaysaaba inuu bararkii iyo haarkii iyo madowgii iyo waxii oo dhan in ay sii dhammaanayaan bahashaanayta inab caadi maha wallahi and then labadanna waxaan horta aniga babyaan dhalay January marka markaa umur tahay jirkaaga wuu isbedelayaa luquntaada way madoowaanaysaa wejigaaga dee har waxaa gelaya wuu madoowaanayaa marka saddexdaanayto caffeine solutionka oo indhaha loogu talagalay hyaluronic acid iyo the niacinamide I swear wallahi wax weyn bay ii tareen wejigaygii oo dhan nadiif bay ka dhigeen qurux miiran hal midab camal baad u malaynaysaa inay maalinba maalintay mataqaanaa kasii maalinba maalintay kasii dambayso waxaad u malaysaa in ay mataqaanaa jirkaygii wejigaygii inuu hal kalar noqonayo marka saddexdaanayto waxaan dhihi lahaa no question about it su-aal dhan ma ka taalo haddii aad tahay qof hyperpigmentation leh haddii aad tahay qof oo mataqaanaa u baahan clear skin even tone inaad heysid oo hal midab dhan wejigaaga noqdo saddexdaanayto iga qor meel insha allah soo tijaabi waxay dhici karta in mataqaanaa kuu shaqayn waayo oo adiga dee mataqaanaa jirkaaga uu garan waayo solutionkanito it's okay you just have to find waxa kuu shaqeeya laakiinse I think aniga gabdhaha aan la hadlay oo iiga horeeyay alaabtaanito si iigu sheegeenba wallahi wax fiican unbaa la ila wadaagay reviews oo kulli la dhahayo waa companyganito inab caadi ma aha marka insha allah saddexdaanayto definitely soo gata tii ugu dambeysay aniga aan soo gatay oo mataqaanaa aan haystayna waxaa waaye magaciisa waxaa waaye AHA 30% plus BHA 2% peeling solution ama waxaa loo yaqaanaa the blood mask waa 10 minutes exfoliant waxaa loogu talagalay uun 10 daqiiqo bes inuu wejigaaga kor saarnaado sidan buu u egyahay waa very guduud ujeedaan
wejigaaga dhan waxaa loogu talagalay uun 10 daqiiqo bes in aad mataqaanaa uu ku marsanaado. aniga sahro ahaan waa ujeedaan horta meeshaanito hadda I don't know inaad arki kartiin, let me show you. intaas bas baan ka isticmaalay, marka wax badan ma isticmaalin tan. waxaan saas u subiyin waxaa markii ugu horreysay aan isticmaalay, I don't know, aad iyo aad bay iyo cuncunaysay, like wejiga dhan aad buu iyo cuncunayay. waa wax yar, I felt like it was a little too aggressive, like very very aggressive, and that's why only la dhahayo 10 daqiiqo bas inuu kugu joogo wejiga. marka gabdho waxa aan weydiiyey oo isticmaalayay waxay dhaheen qofkii finan leh, haddaad finan leedahay, hadduu wejigaaga kasoo bax leeyahay, mise hadduu mataqaanaa yahay oily, very very oily, maxaa la dhahaa mar walba poreskaaga waxaa gala dirt, ama aad leedahay blackheads, you know, meelaha waxa madmadow oo wejiga ku leedahay, definitely bahashaan soo gado, isticmaal weekii hal mar basaa kugu filan. maxaa yeelay it's just gonna mataqaanaa uskagaas oo dhan ay soo nuugaysaa, ay soo mataqaanaa goynaysaa, and way fiican tahay. marka aniga maybe once a week waan isticmaalay, laakiinse I think 3 goor bas baan isticmaalay intii aan soo gatay. 3daas goorna it was very very quick, like I didn't even 10 daqiiqo ma dhamaysanba, waxaan haystay ilaa I think maybe 5 to 8 minutes, but way fiican tahay, overall way fiican tahay. marka walaalayaal, I hope inaad iga faa'iideen insha Allah. waxaan dhihi lahaa definitely try it out. alaabo badan products badan bay haystaan. marka waxaad marka hore waxaa loo baahan yahay jirkaaga wuxuu yahay inaad ogaatid, ma dry skin baa tahay, ma waxaa tahay isoo sheeg oily skin, ma labadoodaba isku dhex jiro combination baa tahay. then wixii kuu fiican akhri, soo baar insha Allah, and then mataqaanaa soo gado. but kuwaanayto is really really nice, intaan aniga hadda ka faa'iiday, intaan hadda mataqaanaa marsanayay waa waxbaan ka faa'iiday. teeda kale waxaan rabaa inaan dhaho, horta don't expect mataqaanaa anything to be overnight. skincare takes time. skincare waxaa waaye marka weliba product aad subinaysid waxaa loo baahan yahay samir. hal habeen ma ku bedelmaayo, 2 habeen kuma bedelmaayo, waa long time, like at least waxyaalaha waxaa arkaysaa maybe 7 or 6 weeks after aad isticmaalaysid, markaasaa isbedel aayar u arkaysaa. waxaa lagaga baahan yahay inaad dadaashid, maxaa yeelay maanta intaa isticmaashid berita ma isticmaali, you know, waa ka daalaysaa, ma loo baahnaa. maalin walba like waxaa loo baahan yahay maalin walba. marka insha Allah isku day, isku mataqaanaa taxaluuji in aad habeen walba 5 daqiiqo nafsadaada u ogolaatid inaad wejigaaga iyo nafsadaada mataqaanaa time aad siisid. ani badanaa markaan sii seexanayo right before bedtime ayaan skincare routinkeyga suubiyaa, subaxdiina obviously markaan sii baxay mise markaan soo kaco oo aan mataqaanaa maalinteeda ii bilaabanayso ayaan marsadaa. marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen. again haddaad su'aalo qabtiin insha Allah ila soo xiriira. snapchatkeyga waa kan, instagramkeygana waa kan, so insha Allah ila soo xiriira. labadaas ayaan ku fiicanahay inaan wax uga soo jawaabo. facebookga I don't know, ma aqaani, waxay geliyaan meel kale oo aan arki karin. marka insha Allah facebook ha igala soo xiriirin, waxaa igala soo xiriirtaa ama snapchat ama instagram hadduu ilaaha yiraahdo. dee marka waxaan rajeynaya inaa iga faa'iideen insha Allah. hadal badan haanma buuxsho, khayr badan baa iniin rajeynaya insha Allah. haddii aad igu cusub tahayna fadlan subscribe ka taabo, comment and like and share this video haddii aad ogtahay gabar walaasheen ah oo mataqaanaa ka faa'iidaysa. waa inoo video dambe, waa inoo maalin dambe. asalaamu calaykum, waa walaashin Sahra oo idin leh nabadgelyo.